sida halkan aad aga jeedaanba aniga 3 jeer ayaan Honeygain kala baxay lacag. 3 jeerna waad arkaysaan mid walba complete waaye actionkan waa aragtaa. Markii ugu horeysay waxaan wax kala baxay waa bishii Agoosto 22keedii ayaan kala baxay oo 2021ka lacag $20 ayaan kala baxay PayPal-kana kala baxay. Markii labaadna waxaan kala baxay $20 almost $2 asna waxaan la baxay September 16keedii waa arkaysaa asna waa complete. marka saddexaadna waxaan la baxay bisha June hadda aan ku jirno waa bisha labaad bisha lixaad ee sanadka labadeedii 2020ka labadeedii ayaan isagana la baxay oo waad arkaysaan asna waa complete. marka labadan mar saddexdan mar mid walba wax gooni aan kula baxay. marka koowaad waxaan isticmaalay PayPal account aan kula baxay, marka labaadna waxaan isticmaalay Bitcoin, marka saddexaadna waxaan isticmaalay wax la yiraahdo Jumptask qayb hadda aan ku tusinayaa waa sida halka kaaga muuqata Jumptask kaas la yiraahdaa, laakiin waa token gooni ama waa crypto gooni waaye oo isagana aad isticmaali karto. marka kan token ka asaga Jumptask kan waa mid faa'iido kale oo isagana gooni ah leh ama dheeri ah. sida halkan aad uga jeedo saddexdan maraan la baxay labadan maro hore waxaan isticmaalay oo aan isticmaalayay walletkan uu leeyahay wax la yiraahdo Honeygain. halkan waxa kaaga muuqda Honeygain wallet, halkan waxa kaaga muuqda Jumptask wallet. Honeygain wallet waxa waaye halkan marka aad joogto lacagta Honeygain wallet-ka aad ku qaadanayso kugu ururayso ama ku ururinayo halkan ayay soo galaysaa. laakiin hadaa Jumptask joogto Jumptask waa kana. Jumptask marka waxa weeye wuxuu aga fiican yahay ama aga duwan yahay Honeygain inaad kaligeed kugu ururto. waxa waaye Honeygain inta aad ka hesho ayuu 50% bonus dhibco kugu daraya bonus 50% bonus kugu daray. hadda waa arkaysaa labadii bish ayay ahayd markii aan lacagta hore la baxay, haddana waa arkaysaa 19,428 points oo u dhiganta $19 iyo bar ayaa hadda igu jirtaa isla hadda waa arkaysaa. waa maalmo gudahood. marka asxaabta qaar hore ayaan ugu maqlay iyagoo dhahaya ama comment soo qoraya waqti badan ku baxay, waqti u baahan yahay. sax waa kaliya dulqaad u baahan yahay, wax kale ma baahna. wuxuuna u baahan sidoo kale internet. waxaa raba inaan si gooni ah uga taliyo asxaabta daatada isticmaalo. haddii daata maalinlaad isticmaasho ku shubto taleefankaaga waxaa la yiraahdaa waxba isku lumin. daatooyinka qaar oo 24 hour ka waad isticmaali kartaa haddii aad isticmaalayso waa caadi, laakiin daatada aan 24 ka ahayn oo si gooni si xilli kooban intaad ku shubto limited time aad ku shubato aad ka isticmaalisid waxa weeyaan way ka dhamaynaysaa. marka daatadan isticmaalkeeda waxa waaye iyagoo daatada isticmaalayaan halkii GB ama 1000 megabyte ba waxay kugu siinayaan $1 iyo xogaa adigu waxay u dhigmaysaa $2 ay kugu siinayaan. marka waxa laga yaabaa maanta inaad $1 ku shubato shirkadaha qaarkood oo 2 GB ay ku siiyaan ama 1 GB bar ay ku siiyaan. 1 GB almost haduu kaaga baxo oo u dhiganta Honeygain $1, Jumptask waxay ku noqonaysaa $2. laakiin waxaan kula talinayaa asxaabta wifi-ga isticmaashan ay aad uga faa'iideystaan. Honeygain marka waa arkaysaa haddana waxay arkaysaa inay marayso $19 iyo bar ay u dhiganta lacagtan meesha ku jirto lacag ahaan markii loo sarrifo. sida markaad u jeedaan Jumptask-ga halkaas markaad joogto oo akoonaan video horaan ka soo sameeyay haddii aad fahmin kan horena Honeygain sida loo isu diiwaan geliyo aad fahmin qaybta commentiga haddii aad TikTok ka daawanayso haddii aad YouTube ka daawanayso qaybta commentiga noo reeb si aan video dhameystiran uga sameeyno. marka halkaan aad joogto halkaan uu ku soo qorayaa saladan ayuu ku keenayaa. marka halkaas aad kala bedelinaysaa. haddaan halkaan aan ku daayo hadda oo aan kan xiro waxa weeyaan kaliya wuxuu isoo halkaan ay keenayaa walletkii uu lahaa Honeygain lacagtan halkaan igu ururaysaa. laakiin haddaan kan switch-kan xagan u wareejiyo waxay lacagta igu ururaysaa Jumptask oo ii laabay 50%. haddaan 100 maanta $1 aan Honeygain ka helo waa ii laabay $2 iga dhigaan. ujeedadana ugu weyn waxa waa in la isticmaalo walletkooda oo lacagta kala baxo. waxaan ka tusinayaa trust walletkayga Honeygain ama lacagtan marka aan kala baxay ama hadda isla halkaan ka tusin karaa. halkan Jumptask dashboard tagaysaa. marka tagtid screen record ayaan isticmaalayaa. marka meelaha qaarkood privacy-ga waxa laga yaabaa inuu qariyo video-ga oo ku tusi waayo. kadibna waa kana halkan sida kaaga muuqanaysa 12.13 Jumptask oo token ay ugu jirtaa. tana waxay u dhigantaa waxaan ka tusayaa qaybta trust wallet-kan ka tusayaa waxay u dhigantaa $20 $40 dhawaad xogaa maalmaha way dhacay $20 ay u dhigantaa. marka halkaas ayaan ka tusinayaa isagana waa arkaysaa lacagteed waxay ugu jirtaa
trust wallet ayay ugu dhex jirtaa, waxayna ku jirtaa lacagtan waxay ii tahay Jamtask token wax la yiraahdo ay ii tahay. Okay, hanigan marka waa sidaas, waa isaga faa'iido badan waaye, lacag waa keeleysa, laakiin waxay u baahan tahay dulqaad. dhibaatada Soomaalida khaasatan marka Soomaalida la joogo, Soomaaliya joogto waaye, Soomaalida kale wax walba inta badan way fahamsiin marka loo eego xagga sabrida howlahan. waxay rabaan in maanta intay waxay bilaabaan isla maanta natiijo dhameystiran ay ka helaan. dhib iguma aha in barnaamijkan iska soconaa, kombiyuutarkaygu isaga jiraa, iska shaqeynaya markastoo internet isticmaalaya wuu iska shaqeynaya. saas shinadan u soconaysaa, muqaanis u ururinaysaa. marka aad u qaadatana waqtigeeda way imaanaysaa. waxaa laga yaabaa in wifi kugu jiro guriga oo lacag goona ku bixiso. haddaad doontid wifi hadduu kugu jiro isaga ayaad ka bixin kartaa, intaan iyo ka badan baa ka bixin kartaa. markaysaa marka dhowr maalmood, labadii bisha ilaa hadda almost $20 waa arkeysaa. marka waxaa laga yaabaa bil haddii ay gaartana inaad ka badan ama 50-60 ay ka samayn kartaa laga yaabaa. waxay ku xiranta kolob data isticmaalaysa. kolob aniga hadda Soomaaliyan jooga, Soomaaliyana ma garanaya marka caalamka loo dhigo internetka siduu ka yahay, laakiin waad dareemi kartaa, waan arkeysaa hadda horta ay ka muuqdaan oo wixii ma aha wax oo maxaa la yiraahdaa in screenshot iyo wax lagu bedeli ma aha. waa arkeysaa refreshan toos u arkeysaa, wixii toos u dhacay marka waa arkeysaa. marka asxaabta waxaan idin kula tahay waqtigaan ka dhuminin, linkiga haddaad dooneysana toos isaga u raac, waxaa ku wanaagsan saas waaye. haddii aad banaan ku qorto marka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad kuwo kale oo falsa ku dhacdido hadhowdiina aad waqtiga badan cidlo kaaga dhaco. marka kan waa kii reelka ahaa, isagana description ku dhigay. haddii aad TikTok-ka daawanaysid, qaab farsamaysan ayuu u saaran yahay TikTok, linka caadi looma dhigi kare. linkiga profileka intaad dul tagtid, saddexda linkiba meesha saaran, mid Hanigan uu ku qoran yahay isaga raac ama anaan ku calaamadnaa. sidoo kale haddaad YouTube-ka joogtan, toosan waxaan u dhigayaa linka hoostiisa. mid kasta oo kamid a videoyada ka hadlaya Hanigan linka hoostiisu yaalaa, halkaas iska diiwaangelin kartaa. haddii aad hore u si diiwaangelisay oo aad fahmin, waad is weydiin kartaa insha Allah tacaala. Trust wallet waa kana, waa arkeysaa Trust wallet halkaan la dhahaa. hadduu arkeysa halkaan $24 iyo almost $25 wax dhadhow ay ugu jirtaa. marka waa arkeysaa lacagta tokenka amaba aan haysto oo Jamtask ama Hanigan aan kasoo qaatay waa taqriiban 13 token waaye, ama 13 shilin wax u dhigma waaye. lacag ahaan waxay u dhigantaa arkeysaa $30 dhibic. lacag kaloo yar halkaan ku jirta oo xagga kaagaysa 40 lacag, 50 lacag yar oo halkaan ku jirta toronka 18 toron ayaa ka dhigaysaa wax loo yaqaano $25 ka dhigaysaa. marka waa isticmaali kartaa tokenska xilliga doontana waa sarifin kartaa. haddaad token kala baxdo waa aad fahmi weysid sida loo sariftan, waad soo weydiin kartaa mar walba qaybta commentiga insha Allah tacaala noogu soo qor. sidoo kale linka waxaa hoos yaala janaalkeena waxaa loo yaqaano groupka uu leeyahay telegramka, isagana insha Allah tacaala waad nagu weydiin kartaa waxaad u baahatid. waan idin salaamaya jamaaca. qaybta waxaan ku tusinayaa sida aad u soo geli kartid wax loo yaqaano TikTok-ga ama aad u soo raaci kartid janaalka. okay, sida caadiga ah marka aad soo gasho profileka aad kusoo dhufato oo YouTube-ka janaalkayga waxaan ka wadaa, aad hore hoos usoo gasho waxa la yiraahdo, aad hoos usoo gasho TikTok-ga gudihiisa, qaybtan linkiga halkaan ku dhufo. haddaad qaybta YouTube-ka rabtaan halkaan ayaad ku dhufanaysaa. YouTube-ka haddaad joogin oo TikTok-ga joogtid, halkaan ku dhufo, YouTube-ka toos ku geynaya. haddii aad rabtana halkaan linkigan meesha kuu saaran ayaad ku dhufanaysaa, kabacdina wuxuu kuu soo saarayaa sida halkaan kaaga muuqanaysa. waxaad arkaysaa 3 linki. linkiga ugu horeysa waa kan YouTube-ka aan uga hadalno mar waliba sida lacag looga sameeyo online-ka. kana waa linki kale oo janaal aan ku baranno xigmadaha iyo maamaayaha qaasatan luqadda English ku baxa, oo qofka isagana English baranayo aad u anfacaya. waa kana markaan u baahanay anaga inaan barno waana Hanigan. kan ayaad ku dhufanaysaa linki. markaad ku dhufato, haddii marka ku horeysa aad isdiiwaangelinaysa $5 oo bonus ayaad leedahay. $5 markii aad isdiiwaangelisho isla markiiba confirmation ama inaad xaqiijiso iyo emailkaaga lagu diraa. emailkaaga ku dhufo confirm doo xaqiiji, ka bacdina $5 toos ay kugu dhacaysaa. laakiin waxaad ogaataa $5 ma qaadan kartid, lama bixi kartid ilaa $20 gaarto. laakiin waa bilow fiican. si kastoo noqotaba $5 adiga ayaa iska leh oo ay ku dhigmaysaa. ogowna $5 ahaan way meel hoose ka muuqanaysaa, laakiin waxay kugu calaamadsanaan doontaa dhibci ahaan, sida dhibcahan meesha ku qoran oo kale ay ku muuqan doontaa. $5 marka 5,000 oo dhibcood ay la eg noqon doontaa. halkaas iska diiwaangeli, halkaan ku dhufo. markaad isdiiwaangelisa claim dheh, registration ku geynaa, ama marka aad soo diiwaangeliso confirm soo dheh, kadibna akoonkaaga ayaa toos uga arkaysaa sida hadda aan hore ugu soo aragnay lacagta noogu jirtay oo kale. waa idin salaamaya insha Allah tacaala. linkiga marka meeshaas ku yaala, ha laga faa'iidaysto.